السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudaantii waan salaamay dhammaan meel kastoo dunida ka joogtaan waan salaamay. walaalayaal wallahi billahi talo maskaxnaaga wallahi billahi talo sababta YouTube channelkan subscribe ma saaraysaan ma saaraysaan subscribe adiga ay daawanaysa subscribe ma saaraysaan sababtu waa maxay waa maxay sababtu ii sheeg TikTok tan iga soo follow garay hadda khasab weeyaan waliba iga soo follow garay TikTok tan maana fiidiyowna TikTok waan soo dhigay inta waan soo dhigay khasab weeyaan waa khasab xoog al murqaati igu soo follow garay maxaadi TikTok tayaa ku yiri soo gal waxna wax naga daawad dad kala daawad fans garayso wax kasta maxaa soo follow garanaya salaamayna markaa tan kalena nin adduunku noolo tan kalena xaliye nin adduunku noolo maxaa aragtay ku laaban nin adduunku noolo ma aragtay ku laaban maana waxaan arkay ma garanaysaa horta waxaa la yidhi kasnaageed kaba isma dheera macnaha caqli dumareed ama caqli naagi macnaha waxba isma dheera oo isku mid aad iyo aad baan waxma dumarka markii la dhaho carruur cag weyn yaan la yaabi jiray waxaan dhihi jirnay dumarka Soomaalidu maxay xajir uga dhigtaan niyo dumar waa kuwan dhalay waa kuwan dhali doono waa kuwan guursan doono waa madaxay noo saarnayaan dumarka Soomaalidu maxay sida ugu maamaayeen siyaabaha xun maxaa loogu maamaayaa xun wix xun baa xawaale maxaa loo dhahaa Kale si wax maale ceel wax maale no aad iyo aad baan wax maaniyo kowda waxaa soo maahmaaha dumarka wax u sameeyay iyagaa isu sameeyay dumarka dhibaatadooda maanta waxaa weeye macnaha nin haddii uu guursado dabada laanteeda ku dhagayaan haddii uu qof nin ah wax sameeyo dabada laanteeda lagu dhagay hadday gabadh wax samayso gabadha lalama hadlaya gabadha wax looma sheega laakiin ninkaa la daba raacay ninkaa la muxuu sidaa u sameeyey waa nin weyne dee waxaa laga wada anu garan waayo anu waxaan taa ka wado macnaha waxaasoo dhan waxaan uga soo socdaa waxay tahay sidaad ogeydeenba macnaha labadan gabdhood ee hadda macnaha aad xaggan iyo xaggan ku kala aragtaan macnaha labadan dhinacood gabdhahan aad ku aragtaan waa gabdho ahaa saaxiibo isku ceesh isku maxay isku adugu isku nolol ah isku meel joogaade saaxiibo ahaa oo waxay sameyn jireen ay noo soo bandhigi jireen Soomaalida oo dhan markhaati bay ka ahayd maantana waxay sameynayaan Soomaalidu markhaati bay ka tahay marka dadka dad miyayna ka dhalan dadkaas dad miyayna ka dhalan dad macnaha la qabsan karo la xigsan karo miyayna ahayn dadkaas ya waa carruur cag weyn baa lagu yidhi macnaha waa carruur wax qabsaday leeyihiin marka waxtii kaalay jublad baa tahay waad darantay maxaa meesha waxaan maxaad samaynaysaa sheeg wax maxaad samaynaysaa sheeg in la dhaayro ma garanaysaa sababtoo haddii la dhihi lahaa wax maxaad samaynaysaa wax miyaad argin inay khalad tahay macnaha inaad aniga ila dhalatay mid ogeyn anigu walaalkaas soo miyaa maxaad waxaan samaynaysaa sabab ii sheeg wax maxaad samaysay waa khalad indhaha ka saar macnaha khaladkeedii wada indhaha ka saar marka qofka haddii wax khaladkiisa indhaha laga saaro macnaha macnaheedu waxay tahay macnaha qofku wixiisa wuu qiranhayaa dembigaana macnaha wuu iska ilaalinayaa dee sababta waa dembi adigana macnaha waa dembigaa waad kula jirtaa sababtoo ehelkeedii baa tahay haddaad ehelkeedii tahay qofku wuxuu sameynayo macnaha aada ka qaban macnaheedu waxay tahay raalli baad ooga tahay marka macnaha qofka walaalkaaga markaad la jeceshahay wanaag waa inaad macnaha aad afka kala hadasho afka dad wax uga qaban karin waa inaad qalbiga ka nacdo marka ugu horreysa waa inaad gacanta ka qabato waa inaad muxuu ahaa ka fogaato waa inaad qalbiga ka nacdo waa inaad muxuu ahaa aad ka celiso macnaha si ahaataba waba xadiis buu baahaba soo marka aad uma hadli karo galabteen very soon halkaas ay xanuunaysaa anaa TikTok-gaygan waan soo dhigay intaad tahay macnaha walaal jira taageer intaan baan kaaga baahnaa ma garanaysaa intaan baan kaaga baahnaa walaal jira ma tahay
taageer taageer support gare subscribe ii saar like na ii saar videogii waa intaan lacag ma aha marka aad iyo aad baa ugu mahadsantahay boqolkiiba boqol waan idin salaamayaa peace and love